dadka badankood waxay ku sheegayaan in nolosha qofka ragga ah ay tahay mid ku dheehan daal, xanuun, murugo iyo mashaakil uga baahan halgan si uu uga gudbo. taasina wax baa ka jira. dhammaanteen waxaan ku safraynaa waddooyin kala duwan si aan u gaarno halka aynu higsanayno. inkasta oo waddooyinka loo mari ay kala turxaan badan tahay, haddana cidna ma gaadho dhammaadka iyada oo aysan wajihin nooc ka mid ah caqabadaha ku lamaan halganka waayaha. nebi maxamed nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu u samray nooc kasta oo dhibaato iyo imtixaan ah, haddii ay tahay mid dabiici ah sida faqriga, aradka, waayidda walad iyo waalid, iyo haddii ay tahay mid halganka iyo wax ka beddelidda caalamka ah. aadanihii taariikhda caalamka wax ka beddelay waxay haysteen nafsad adag oo dhisan. waxay ka guulaysteen naftooda. qof aan halganka naftiisa ka guulaysan kama gudbo qaybaha kale ee halganka nolosha. markaas kadib ayay awoodeen in ay mas-uuliyadda dhabarka u dhigtaan. ma jira qof macno lahaa oo adduunka wax ka beddelay. haddiise uu jiro, wuxuu u adkaystay imtixaan iyo dhibaato uusan u dulqaadan karin qof nafsad jilicsan. marka aan isdul taago nolosha xayawaanka, waxaa si gaar ah ii soo jiito dabeecadaha laba ka mid ah sida yeyda iyo gorgorka. balse maanta waxaan doonayaa in aan dib u milicsado nolosha gorgorka. marka aad si qoto dheer wax uga ogaato nolosha gorgorka, waxaad arki arrin la yaab leh oo aynu is oran karno qayb ahaan uu ka shabaha nolosha qofka ragga ah. ujeeddada aan qisadan u soo qaadanaya ma aha in aan ogaano in ay run tahay amaba mid aysan waxba ka jirin, balse qodobada ku lamaan qisada ayaa ah mid aad u qiimo badan. gorgorka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay boqorka baalaleyda. si kastaba ha ahaatee, meeqaamkaa sare ma ahan mid ku yimid si fudud, ee waa mid loo huray sida qofka ragga ah ay uga baahan tahay huritaanka si uu u noqdo shakhsiyad dhisan amaba uu u noqdo mid door ku leh nolosha. gaarista labada arrinba waa mid u baahan wax badan in loo huro. haddaba waatan sida ay tahay nolosha gorgorka ee adiguna dhigta isii markaaga. gorgorku waa xayawaanka ugu cimriga dheer sida la sheego inta baalaleyda ah. wuxuu noolaadaa ilaa 70 sano, balse inuu cimrigaa gaaro waa mid uga baahan marka uu 40 jirsado in uu go'aan ka gaaro arrimo xasaasi ah oo ku xiran jiritaankiisa. haddaba waa maxay sababta keentay go'aanada? sababtoo ah marka uu gorgorku noqdo amaba uu gaaro 40 jir, awooddiisa firfircoon ee u suurtagelisa ugaarsiga ma sii ahaato sida lagu yaqaanay ee uu ku gaaray meeqaamka sare ee caalamka nolosha baalaleyda. afkiisa dhuuban ee sida mudaca ah wuu soo gotaa. da'diisa weyn awgeed baaxadda baalashiisu waxay ku dhegaan garbahiisa. taasina waxay keentaa in ay adkaato in uu hawada sare ku heehaabo sidii caadadiisa ahayd. marka uu gorgorku nolosha halkaa ka taagan yahay, waxaa u baahan in uu qaado 2 doorasho midkood. doorashada koowaad waa inuu dhinto oo jiritaanka noloshiisa uu gabalkeeda halkaa ku dhaca, ama doorashada labaad oo ah mid xambaarsan xanuun aan la soo koobi karin. waa in uu maro nidaam leh ficillo tillaabooyin isxiga leh. taasina waxay gorgorka uga baahan tahay inuu u buubo goob khaas ah oo ka mid ah buuraha sare dushooda, kuna dul fadhiisto. wuxuu bilaabaa inuu dhagaxa la dhaco afkiisa dhuuban ee soo gotay ilaa uu ka jebiyo. bal daqiiqad sawiro inta ay la eg tahay xanuunka uu ka mari karo gorgorku. wuxuu ka maraa xanuun badan si uu isaga jebiyo afka dheer ee soo gotay, wuxuuna iska jebiyaa xanuun dheer kadib. doorasho walba waxay lahaataa xanuun, ha lahaato mid la arko wakhti dhow ama mid yimaada muddo kadib. marka uu gorgorku iska jebiyo afkiisa dhuuban, isla markiiba waxaa u bilowda in uu dib ugu soo baxo mar kale afkiisii dhuubnaa ee sida mudaca ahaa. muddo yar kadib wuxuu bilaabaa tillaabada xigta oo iyaduna ah mid xanuun badan, taasi oo ah in uu maamiyo ciddiyihiisa dheerdheer
isla sidii uu isaga jebiyey afkiisa dheera. taasina wuxuu ka maraa xanuun la mid ah tii hore. gorgorku wuu og yahay in uusan dhammaan halgankii safarkiisa, inkasta oo ay dib ugu soo baxayaan afkiisii dheeraa iyo ciddiyuhuba. gorgorku ma nasto sababtoo ah wuxuu og yahay in ay jiraan meelo uu ka liito oo uga baahan inuu wax ka qabto. mar kale haddana wuxuu bilaabaa inuu iska rifo baalashiisii baaxadda ka baxay ee garbaha ka haya. baalashiisii mar u suurtageliyey inuu ku heehaabo hawada sare hadda baaxadda ayay ka baxeen maadaama uu da' noqday. waxay ku noqdeen caqabad noloshiisa hortaagan. wuxuu bilaabay inuu mid mid isaga jafo si ay baalal cusub ugu soo baxaan. bal sawiro xanuun intee la eg ayuu ka mari karaa in uu baalasha jirkiisa ka mid ah mid mid dhulka u dhigo. inta uu doono ha gaaro dhiiggii jirkiisa ka baxa, heerka uu doono ha gaaro xanuunka uu ka mara. gorgorku wuxuu niyad samaadaa marka uu ka gudbo ficilada tillaabooyinka isxiga leh ee uu guusha ku hiigsanayo. ugu dambaynna wuxuu u bambaxaa si uu ugu heehaabo hawada sare sidii caadadu u ahayd ee lagu yaqaanay boqorka baalalayda. wuxuu dib u bilaabaa nolosha inta uga dhiman ee ka mid ah 30 sane ee baaqiga ah. dhanka kale gorgorka ku dhiiran waayo in uu ka gudbo xanuunka isbeddelka tillaabooyinka isxiga leh. natiijadiisu waxay noqotaa dhimasho. gorgorkii ka gudbay halgankii xanuunka badnaa wuxuu dib u hantaa meeqaamkii sare ee uu ka lahaa caalamka nolosha baalalayda. balse adiga marka aad tahay inan rageed, waxaa lagugu qeexaa ahdaaftaada. intaa waxaa dheer heerka ay gaarsiisan tahay dhiiranaanta aad leedahay ee aad ku dooni gaarista ahdaaftaada iyo isbeddelka aad dooni. sidii gorgorka oo kale, adigu waxaa kuu bannaan 2 doorasho: in ay caqabadaha dhulka ku dhigtaan oo uu jiritaankaagu noqdo mid aanan wax macno ku toornayn, iyo doorashada labaad oo ah in aad qaadid waddada isbeddelka, dhabarkana u dhigatid culayska iyo xanuunka kugula soo darso hayaanka aad isbeddelka ku dooni. taasina waa waddada keliya ee aad ku hanan kartid halka aad nolosha ka hiigsan. sidii uu gorgorku xanuunka uga maray go'aanka doorashooyinkiisa, waa hubaal in aad adiguna dhadhamin. balse fariinta farxadda leh ayaa ah intaasi ay ku horseedi in aad gaarto gunta awoodda kugu qarsoon, aadna u adeegsato si buuxda. awooddaasna waxay kuu horseedi in aad ka xorowdo dareennada iyo dabeecadaha taban ee dib kuu haya. intaa kadib naftaada ayaad hoggaanku u qaban, waxaadna u adeegsan rumaynta hadaf walba oo aad dooni in aad rumaysid. hal midna xasuusnaaw: ukunta oqda ah haddii ay ku jabto culayska kaga yimid dibadda ama dusha sare, ilmaha digaagta ee gudaha ku jira ayaa ku nafwaaya. balse marka iska caabinta gudaha ka timid ay sababto in ay jabto ukunta, nolol ayaa meesha ka bilaabata. arrin walba oo meeqaam sare laga gaaro, ugu horrayn wuxuu ka bilowdaa dareenka gudaha ah. haddii aad ficilkeeda la imaado, waa hubaal in aad adiguna rumayn riyadaada. guul ayaan kuu rajaynayaa. horay u soco.